ما شاء الله ودعينا يا سك ما شاء الله ما شاء الله مالين كجارسية دار اسماعيل وبقرة مالين كجارسية جارسين ناس أشرح مين كلا جارسين ناس والدالي إن هرت هوري أفكي لا نادر وعوق أنا دي ما نادر وقتاً كويدو فري أفكي علوش يدعي قدو علوش كو علول في بعده وعدماتي هوشاسي مركابة هي علوش قفكو عدمات الأفكي وحكي علوش كاقا بكو قفكو بسوي لا هرتور أنا أفكنا وإذن كدعيني لكن أفكا علوشي ودعيسي ما كرنت إذن شيغو إن قلبي ودعي ودقي وقبوبي وفرحديسناهي هبي بانهي idinkaan habi iga dhigay idinka ay fahmay idinka ay gartay idinka ay la tal ah idinka ay ehla ceelki idinka iga biiyay qof walba meesha uu ka tawalayo yaa Allah ka tiiriyo qof walba culayska haya Allah ka qaado qof walba dhibaatada haysa ama caruura ka hayso ama qoyska ka hayso ama shaqaha ka hayso ama caafimaadka ka hayso qof walba dhibaatada haysa Allah ka kor qaado xooluhu way fiican yihiin laakiin xoolaha waxa ka fiican qalbiga fiican inuu qalbigaagu habi yahay anigoo laandheera aho markaan dhaho saanaan ahayo daaro Ismaaciil baan ahayo kabla laxdaarood baan ahayo saanaan markaan abtirsado baan hoos u fiiriyaa misnabar baa igu yaala oo yaa raba haye markaasaan isku dhahaa iska ooyaa marka lagu tuso in lagu rabo waxa aad sheegaysid qabiilkaagu siduu yahay baad ku faanaysaa mar walbana moralkaagu uu koreeyaa marka maanta caawa moralkaygu uu koreeyaa waxa uu koreeyaa intaasoo khalqi ah oo adduunka joogta waa wareegaan waa safraa waa travel gareeya kismaayaan tagay xamar baan tagay Puntland baan tagay Ethiopia DDS baan tagay Kenya joogaa meel walba saa u wareegaa meel kasta arkana daaro Ismaaciil ciida ka badan oo degan baan ku arkaa haddana saasay tahay markaan farxo baa haddana farxadaydii laxdin isu bedeshaa waxa idinku sheegaya waa waxaan qabay sida maanta aan arkana in waligay waxaan sugayay baan hela waagan soo baxay waxaan oran jiray baabuurta istiikar lagu dhajiyo oo mataqaanaayeeto oo saana oo wada daarood ah baan sameynaya hammi baan haystay anigoo dhaqdhaqaaqin in aan magaceena kor u qaado oo xataa gaalka gaariga iga agwato oo Mareykan markaa Minnesota jooga gaarigayga markuu daarood ku arko inuu gogolka galiyo ila gaalada waxay gogol gareysay means daarood uu raadiyo wax badan jiinka furayaasha lagu xirto waxyaalo fara badan baan ku fakari jiray laakiin noqon weyday waqtigaas laakiin ay dib ka noqotaa laga yaabaa ilaahay haydin barakeeyo wax aan raadinayeen waxay ahayd inaan tolkay dhexda guri kale hadii la iga martisooray dhaqaale waa xoogaa waa la isiiyay maharmooyin raalaha waa la yiri laakiin waxaan ka jeclaa marka runta idin sheego guri daarood intaas la iga dhahan ka jeclaa so qof kasta wax ku qabta hadal baa daba socda laakiin guri daarood marka wax la iga qabto hadal lama socdo ma daba socdo marka Soomaaliduna ma aamusto tolkeeda nacay tolka anaga soo dhaweynay intaas aniga boogba ii tahay nabarba ii tahay waxa weeyaan waa soo laga daba hadlayo laakiin caawa halkan waxa la iiga qabtay qof iga xiga ma jiro hadii la ii ama iska leeyahay yaa ka daba hadli waa gurigaagii weey qofna iga ma daba hadlayo dad xitaa saanta gacmaha u qabsataa maroorsata xitaa waxay la aragtay ku dhimaysa xaga keenay un baa taalaba thank you caawa halkan markaan ka dago anaga ku qabanay leeman yaa ii qabtay daarood yaa anigu hay daarood simple wax ma taqaana meesha ka gaaraya laakiin guri kale wax lagaaga qabto mar walbaba waxa weeyaan nusqaan bay leedahay dadkana waxa deeqda haad sor qureed baa la dhahaa sor qureed waa maxay waa hadal laga daba hadlay inta dhawaato waxa la sameeyay wax badan baan is ilowsiyaa because waxaan rabay reeraha Soomaaliyeed oo isoo dhaweeyay dadka isoo dhaweeyay maana dad kale ba aad iyo aad u hadlayay marka haddaan hadlo
meelo beer dheer baan gaara dabeecadaha ma duusha dabeecadaha isaga egnaa jira non stop kaasaan wahayna marka waxaan kugu jeclahay wala hadaan soo rakibay buu qalbigayga ka hadlaa ilaahay baan ku dhaartay waa kala soo rakibay wax karta waa ilaa kirsi baa joogay qolkaan ku dagaalamayay maalinta inta wax laga sheegay aan dadka baalaha ka rifay waxaan kugu jeclahay you know no markaad tiraahdo inaad dadka hadalka u diidid baan waxaan dhahaa allah wuu imatalaa alla jeceliyaa ha u ogolaan dadka naqaska waa ku dhajiyaa waa gordeg markaa deg waa iscelisaa fartaa doontaa qortaa markii gabadh soo qabtay may gabadh ninkii soo qabtay ilaa maantay filmaaniga sameeyay ma dusha kala garan waay wiilashii iyo gabdhihii inaa lilaahi walaa raajicuun gabadh darbiisha intaa soo qadoriya soo qabta galayo garaadka sawirkiisa idhig inaa adeer majid meel maxay gooda inaa lilaahi walaa raajicuun ilaa hadda markaa arko oo ku qosla wallahi idaacad yaraysanaysa bay ka sideen madusha 13 saacadood 3 saacadood kalkuu difaac ku jiray gabdhihii wiilashii iskaga ekaadeen kula هذه الله قال لا ilmaade reero laakiin waxa ku tiri gabadha moogtay waxa ku tiri gal dagaalka ku tiri gabadha moogtay wala yahay ninku warjii dooraan wada geeyay darada sabacay oo dhan kiisoo qasoo anyway waxaan ku sheegaya anigu waxaan jeclahay qofka xayiga ah xayi baa tahay xayinibaad u hadashaa xayinibaad wax u goosataa xayinibaad wax isaga celisaa ma sha Allah waa in lagu faano waa in laga xishoodo waa in madaxa lagu saarto waa in lagu xurmeeyo waa in lagu dambeeyo wallahi oo billahi oo tallahi qofaad ka aguuxday ma sha Allah inuusan hadli karin anigu waxyaalaha aan jeclahay weeye markaan goodiyo waa laga leexdaa marka dumar baan hay laakiin adiga ma sha Allah ragnimadeed ku dirsata marka in adeero anigu waa madaxad ii saaran tahay garabkaagan taagnahay waxa weeyaan wixii sharan shuur horeeraheena hoos ma ola hadlaynaa haday naga diidaan kor baan ku qaylinayna waxaas kala banaankaan cid ka kuugu tagamayso anaguna ku garab taagnahay waxa la weeyay anigu caaw farxadan qabo wallahi marka laga xanaajiyo ma jeceli oo marka lagu fogeeyo ma jeceli oo marka qadiyad lagu sameeyo ma jeceli waxaan jecelahay tolka dhexda inaad kaga jirtid qolal baan ku qaatay oo baalaha kaga rifay adiga iyo maxamed cali oo aan iri oo maxaa loo xira oo maxaa loo diiday marka waxa weeye qaali baa tahay abwaan baa tahay codkar baa tahay geesi baa tahay ma sha Allah waan ku leeyahay ilaahay ku barakeeyo cadowga ishiisa iyo sokeeyaha ishooda iyo shaydaanka ishiisa iyo jinka ishiisa Allah ka celiyo Allah ku xafido qof kasta oo daaro Ismaaciil ilaahay waxa idinka bareeyaa inuu qalbigeena burcad isu mariyo kuwa isqiimeeya oo baraha bulshada isku qiimeeya oo isdhageysta oo aan isxagxagan Allah naga dhigo oo kala dambeeya Allah inaga dhigo kuwa ku kala dambeeya baraha bulshada oo ku kala xishooda meelaan u soo dacwoono kuwaan ka helno Allah idinka dhigo ilmaada riyaalo baraha bulshada waa bad ayadoon daaro Ismaaciil baraha bulshada dal casarkaas kaliya ka qayliyo baan qaylin jiray war daaroodo war idimeeyay war soo gal social media saan u qaylinayay sidii balliga u soo galeen sidii baddiba u soo galeen baddi markay u soo galeen baa waxaan ka waayay waxay dhaha thank you maamulina no year thank you maamulina waan difaaci jiray thank you waxa weeyaan dad kasta oo maago daarood Ismaaciil intaan difaacayaan intaasoo dunuub gala oo dambi gala ilaahay iyadana ha iga dhaafo inagana qalbigeena burcada Allah isu mariyo wixii inaga xishoodana aan ka xishoono wixii inaga xishoon waayeen aan iska celino maahan inagu yeynaan dadka dulmin laakiin hadii la ina dulmo aan isdifaacno maceeba waa maya marka waxa idin leeyahay aniga caawa qalbigaygu waa faraxsan yahay aniga caawa maskaxdaydu waa degan tahay aniga caawa farxadayda lama soo koobi karo maalna ma ahane waa meeshaas inta la isaaray tolkay geesaha iga taagan yahay oo la dhageysanayo oo qalbiga la ii dhisay oo raali ah oo la yiri intaasaan anigu u baahnaa intiina waa hela ka badanna waa la iga helayaa ana waa la iga helayaa idinkana waa la idinka helayaa is-agjooggeena iyo ismaqalkeena iyo isuhiilinteena waxa weeyaan qof walba waa u baahan yahay ama nin ha ahaado ama mataqaanaa dumar ha ahaado ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado inaan isgarab istaagsanahay oo naloo kala gabado
يا وناكسنتها إنا قفل بمركو قفل كلا كم قيني هنا aan lagu xadgudbin oo dhaw hebel saas ma hebel hala daayo ama hebelay hala daayo wax wanaagsan madariyaal waan isqiimayno aan sharafno ilaahay baa ina karaameeyay magacan wala inoo soo shaqeeyay awowayaasheen iyo kuwii ka horeeyay inoo soo shaqeeyay si inoogu soo shaqeeyay marba aan xanaaqaan waxaan dhahaa googooye iyo shirac cali gabdhaha iyaga ta u heeliyaan goob baan orange baan dhahaa maxaan u dhahaa anigu googooye indhahayga ma saarin laakiin ina googooyaan ku arkayaban maxaa loo dhaa qof kasta taariikhda qoraysa yaa caawa markaad dhimatid oo gabadha kaa dambaysa oo daaro ismaaciil waxay oranaysaa allah yaa ii heelinaya hebel hadduu iga hortegay ogaada gabdhuhu tolo ayay baan dhihi jirnay tolo ayay baan dhihi jirnay maadariyaan tolo ayay u dhahanaa idinkaa idiin dhahaynaay mana dhegaysanaysiin maadariyaalna dhegaysta oo markaan tolo ay dhahanana ogaada oo markaad aragtid annagoo xoogaa gamiin laho hoos fiirinayna ilmaadeerayaal hoos noo waraysta oo ilmaadeerayaal qolalkayaga soo fuula oo ilmaadeerayaal noo qosla oo ilmaadeerayaal na soo dhaweeya aad baan idin salaamaya dhageysigaad dhageysteen ilaahay waxaan idinka baryayaa inuu magaceena iyo masabkeena inuu kor u qaadan ilaahay idin weydiisanaya dhammaanteen rag iyo dumarba awlaadeena barakeeyo guryaheena barakeeyo Soomaali oo dhan inuu ilaahay qalbigeeda burcad isu mariyo oo aan kulligeen walaalo noqono kala xishoono allahna gaarsiiyo kulligeen qof kasta Soomaali ah wallahi meel cilla hindiyaan hadda ka imid san waxaan degay meel Soomaalida ka fog bajaaj baan soo qaataa marna Uber baan soo qaataa Soomaalida ay qabata ala Soomaalida soo fiirinaya maanta dhaha Soomaalida baalaha iga rifaysan ka qaarkood markay imaado xillan horti waalna qaarna waxay dhahan maamuli waa ku jecelnaa wax walba wad ka helaysaa marka bad hadaad gashid bahal iyo qodax iyo dhagax iyo wax kasta waa ka helaysaa marka alxamdulillah rabbil caalamiin Soomaalinimaduna wax qaali ah laakiin Allah ina gaarsiiyo laakiin horta bardaaraadnimadeena aan quweyno Soomaalinimada qof walba dhinaciisa duu barwaaqo kaga jiro aan isu duceyno aad baa idin salaamaya hadalkan waa idinku dheereeyay aad inaad malyuuna insha Allah haddii dadka waa tolkaagii waa wada ilmaadeerada dhammaan insha Allah waxa weeye arab iyo laba daan baa isugu dhow oo waxa weeyaan waa isqarinaan wixii hore insha Allah waad ka meeran dadkaaga hadda kadib bartinka kaga jir wadamkeena ama magaca daarood qadiyada adag baa koorayaasha dhinac walba ka jira waxa la yaala wixii qadiyada ah dooli waxa weeyaan goorta aad dhacday inaad xanaaqdana waxa weeyaan meelaha darad ka xanaaqi karaan ba ka fogaan insha Allah waaba intaas aad waxaan siinayna ninka liyaada cali waraad war waay qabso waay waa degdegsan table qabso war bal qaado meel baan galay buuray qaado ku markin وصايا رجول هذا كله هذا شيء دقاضو wuxuu yiri barsare ninkan ka dhalan baahiba dilay wuxuu yiri ninaan daarood gacal ku lahayn bay guri weerartay wuxuu yiri guri gaaleeri ajiibin hayso gabiyay ay adari kuwa dhaantada ka tuman bay ehel wadaagaan wuxuu yiri shishoori geedka weeraabay guunta noo taalay wuxuu yiri hooy barsare ninkan ka dhalan baahiba dilay ويري ودريه دداريه دباد kala dhaxta laay la fadhuuxi laga dhulsay baad dabaqsanaysa hal dhurwaa candada gooyay baad ho ay dil u sida tayaado adari dhaantada ka tuman ba dab lagu soo siin maanta waa faraxsanay gaarigii la gidoo ma ka cabsanaya waxaan aad ugu faraxsanahay gabadhii guriga gaaleeri maanta inay meesha fadhido oo waxa weey aniguna maanta ceebka saliinay xalay markii codkaada li daaray anoo may qaadanay calooshay xanuuntay caloosha xalay wasaxan way alla beerka دارو ما أنتوا هذه نقدين ستة وهذه كميسين وهذه فرحسين إلى هي الجنة هذه نجيله عوي ماشي نقوم بس هو معطي وربرام بالشدة يقول نسمع بس هو معطي ضد أنا أسكت كان هين وحوي محسة أو الناس قلنا بلاي أنه واحد درسني وربنا تيجي إنسان رجع دمروا وحوي قبل رب بقرة أما ويل رب بقرة دارو إسماعيل ودون كوي ما ده أصحابي وضلي المدريالو gunimada yaa la qaadanay waliba raggow gabdhuhu waa gob maamuliyada kala naga dhalatay boqortooyada ka baartay gabadhan hadda soo baxday la dhaho nimcan qalila
caan ka noqotay CNN-ka naga dhalatay ilmaadayaal gabdhaha sharafa loo yeelo daarodo gabdhaha la qadariyo wallahi talawrooyo salaam iyo qeereysnaa aloosh وكبحي سيدي علي وكبحي ورعاد بان idin salaamay maama milyan madusha intii laba soo koobi karo horta labada mujaahid aad baan u salaamayaa gabadha regalaadiyeed aad baan gaar ahaan u sii salaamayaa gabadha daris baan nahay aadna anigu waa u taageeraa in adeeray qof aad qadiyada daaroodka aad aan u jeclahay baa tahay wallahi meesha lagu wacayo anigu shan ku furto bilahay dagaal baan ku qaadaa in adeer waxaan ku leeyahay hore u soco boqoradii daarood baa tahay naagtan daarood ugu qiimaha badan baa tahay aadban ilaahay waxaan kaaga baranaynaa cimri dheer iyo cibaado suban maanta kale waa maalinta iskale garab istaagi lahaa hablaha daarood aadna waan kusoo dhaweynayaa in adeer laakiin ma duushaa baan kelmad leeyahay ninkaa ma duushaa may maqlaysaa in adeer sidaa baan ku maqlaa in adeer jirjiroola caadiyaa tahay wallahi ilaahay hadallo alla leeyahay dhowto dhageysanayo waan qosliyay saacad iyo bari baan qosliyay ma garatay marka sheekadii gooja cadda adoo wadan habeen dhowto dhageysanay ya sheeko gooja cadda adoo wadan dhageysanaya ma garatay saamaha haddaad dhegeysanaysa ku jiray maya de wax adigu waxa aan aad aan u diidayna kuma jirin laakiin hadalladaas daba dhigtay oo dhan baan aad ugu qoslay ma garatay كل يوم تهاوشي ودي بدو فريسته أو كل بدو ما كل هاللي بار ملايين يا ما قرأت. ما هاوش عسوي ده ماتي مد لبعض ضد ككني جاي قطع عدي بالك قطع عدي واحد كتير ولا أوجي هاي قطع عدي مد لبعض أروح نن ما أرنت أورت يال لما بدل القصة بي ده ما بدي عذابا دراويت واحد سندقة ولا هاي أنا كمشي كرو قطع عدي هلا نافو haddana aan leeyahay macnaha wax ceeba ku jira ma jiraan dadkii dad yar bay ahaayeen 15 daqiiqo gooja cadde la geliyay laakiin waa laga dad waxba lagu sameeyay iyo waa laga soo orday iyo waa laga cabsaday iyo de qofkii maba jirtaba marka maxaa sheekada loo soo celinaya barnaamijka nagu celiya abo nigan update ma daaqadaha ma soo qabsado anigu cusub waxaas meesha in la keeno ama ma dad iyo dad kale iskala weey gooja cadde wax ilaahay abuurtay oo ka sheegay ma jirto gooja cadde waa god idoor lagu riday oo ma saacagale idoor ku yahay ku dhex jira weey waaba intaaba abwan mudigal ala duldulo meeshaan gabar boqorada oo daaro Ismaaciil ahaan maaragtay ku calaamad saareynay oo ku sharxeynay daarood waa u duceysay wixii ay dib qabtana way cafisay hambaliyada ayadoon baan hadda meesha u fadhinaa ايوه ايغر هانادنا دوريغا u duceeyay wali way inta isku ma sha Allah ee galaadi baan nahay aad baan ugu duceynayaa boqorada ilaahay waxa kaaga baryay cid walba hortaada istaagtay ilaahay duufaan ka dhigo inaad aad baan ku salaamayaa aamin ya Allah Allah ma sha Allah thank you ما لي مقلة محمد عليو آديات ما مليون والسلامين يدين مديني MMS waxaan leenahay eedoy oo ku jecelnahay annagu dhamaanteen daarood Ismaaciil oo ku jecel yihiin aan harti iyo kablalax iyo mareen iyo qase iyo ortable iyo ciise daaro dhamaan ilma shanta ilma daarood oo dhan way ku taagan yihiin way garawsadeen wixii adigu xumaanihi iyo waqada degdeg dukaadi qadar way garawsanay waan garawsanay annagu waxa weeye we love you baan ku leenahay hooyo we love you mama we love you mama million sorry baan ku leenahay sorry meel walbana waa gurigaagii soo dhawow waxa weeye waxaan garan weynay baan adiga noo sheegay marka hooyo soo dhawow aad baan ku salaamayaa والميو ودواي هوي معانا thank you horta abshirta Allah na waafajiyo maanta waa maalin aad iyo aad u qeyr badan maanta waa maalin guul ah maanta waa maalin midnimo maanta waa maalin sharaf leh waxaan halkaan uga mahadcelinayaa dadkii sharafta lahaa ee karaamada lahaa ee beelweynta daarood lahaa ee maanta nala qaatay ra'yigii ahaa maama milyuun sorry si fiican buu inoogu dhacay abwaanka maxamuud xirsi teegarman ninkii maamada in alla intii ka qayb qaadatay dhammaantiin waxaan leenahay jasaakumullahu khayran jazaa
عاو ما مليون نوع عافماد قبطة واحد بنوغ في عن وهبين فرحة له ما مليون وحالنا good luck أدونا عادي أدوك وفر حسن هاي عاو ولا تلقائي وكو جعلي هاي أو دارد اسماعيل البغرود هاي عاو وادرنتي فرحة داسان عاو وقول عيدينا والآن إن شاء الله وحال دارد ونقول لنا من نمضها لغا شقيو dadka waxtarka leh goobta ah ee daaradu wax u tari karana hala ilaalsado aad iyo aad baan idin salaameynaa kulankeena kulan khayr qabo guuleysta dhamaantiin ما شاء الله محمد علي أدينا الله كبركيه بدل ما تكشقيسي وناك بعد كشقيسي مركا أدينا الله كبركيه أصحابتك سوق قاطع لأن الله بركيه كلن كان أنت كلي إلهكم أكيسيه كلن ما كبدنا قصلينه وقري حيسنينه سفر حسنه الله يسوق كانوا أدبر دين وذا السلامية إذن كودن ما شاء الله ما شاء الله ويغفر حسين الله إذا كفرحيه أشوقنا أي فرحة guuleyso abwaano hay noo soo gabagabay madusha aad inaad arintu waa gabagabaysantay meel guriga gubernimo bayna ku dhamaatay midnimadeena iyo waxa weeye xafiiskeena iyo hore socodkeena tan muujinaysa qofkii caloosha malax ku leh waxa weeyaan qof kale oo waqti xaadirkan nabadgelyada iyo midnimada daarad ka shaqeynaya waxa weeyaan wax yar oo maalin ku yiri ama waxa weeyaan safdhaafeen ama waxa weeyaan waxaas sii daba joogana niyow isaga cika roob qofkaas oo kale xitaa wadadka la cadaabo weeye aqaabta ilaahay uu ballan qaaday naaraha sida zamariira iyo jahannaba iyo jirxiima iyo zicira iyo xudama ama hawiza kuwa loo ballan qaaday weeye kuwa qof in adeerkeedu maalin wax yar dhex mareen ama kelmad ku yiri waxa weeye laga yaabo inuu gabar yahay sii daba jooga marka sidaas iyo darteed waxa weeyaan horeyno anagu aynu u soconaynaa insha Allah horeyno wadal magac wana gabagabaysanta arintaas bay dhaanado kale maxaa cali oo anigana waxaan leeyahay munaasabadan sharafta badan ka faa'iideysanayo cid alla cidii waxay ka tabanaysaa daarada Ismaaciil afaaliye musamax balanteena waa midnimo anna waa idin afiyay ha midnimo oraha loo socdo basro intaad dheh laba eray baan anigu leeyahay maxaa cali oo walaale aad baad u mahadsan tahay hawsha aad gudatay maanta waa kaaga mahad celinaynaa in badan baan dhigi jiray wardaaye warka leexda marxuun lagu tilmaamahay adiga rag kale oo badan la nimanku waa niman daarooda way iska soo noqonayaan haddii qadaf dhaco adoo wax ka tirsanaysaan way damayaan alxamdulillah maanta adoo sultaankii guud ee daarood ina hawsha gudato shaqadii wareysad qabatay maama Malyuun Soori baan leenahay soo dhawow waa gabadheeni gabadheen oo dhanna waxaan u baahanahay in ay sharaf inaga mudnaadaan siday u sheegtay maama Malyuun in aan qadarino inaan ogaano ka warqabno markay wax sheegaan inaan dadka u dhigno abwaankeeni oo meesha fadhiya abwaanka guud waa salaamaya daaroodka meesha ku jira iyo Soomaalida waa salaamaya gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan baa sharaf inaga mudan laakiin kuwa xilku inaga saaran yahay waa ina ogaana ka warqabnaa waxaan idin leeyahay aniguna abwaankii guud ee daarood baan aan la ogaado arinta iyada adaa soo qaban qaabin doona maxamed caliyow natural baan u ahay shifadii baan ahay godkii baan ku fadhiyaa laakiin rag kale iska balaqsada bahasha iskaga faana waa loo baahan yahay laakiin waxa weeyaan halkaas aan u soo fadhiisanayaa qolkaagaan u soo fadhiisanayaa abwaanka guud ee daarood jilbuhu soo aasanaya maalin dhow insha Allah waxaan leeyahay dadkii ka qayb qaatay hawshan ee daarood ee Soomaaliyeed way mahadsan yihiin aad bay aan ugu faraxsanahay maama Malyuun maanta inay gurigeedii joogto gurigeedii lagu maamuusay ayaduna ay nagu faraxsan tahay ma sha Allah baan idin leeyahay hal mar waxa soo qortaan Soori maama Malyuun iyo daarood power labada soo wada qora hal mar nacala shaydaan ku yaali aad waan mahadsan tahay ugaas aad waan salaamay dhamaan aad iyo aad baad u mahadsantahay maama Malyuun إن شاء الله وما سنتها بدرسها مدرك ونكسن تذكر جوا كجعلين أنا وكجعلنا هاي إن شاء الله كلهم دبوا غير له قول لك في هذا معاود هاي ولا هذا الإسلام بطريقة كده عيه ما شاء الله